وعد الرحمن وصدق المرسلون واك إلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه قل شيء سورة أفوفينا با إلهي يري إسرافيل با سورة أفوفايا دان دولكay ka soo bixi doonaan deedna xagga Ilaahay ba loo soo ururin doonaa markaas qofkii muuminka iimaanka lahaa waxa uu leeyahay waa maxay buu leeyahay iyo hurdadii naga soo kiciyay waan jifnay waan hurudnay hurdada maxaa naga soo kiciyay buu leeyahay markuu arko khalqigii oo banka qiyaama sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nabiyadu ay noo yabooheen Ilaahay iyo rasuulshiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii la noo yaboohay yawm alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin kaliya nolosha adduunyadu وجعلنا الليل والنهار آيتين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار بايلهيري آية الليل آية النهار نولشان الدنيا أن كنا لهي ومالين يا هبين مالين تينا واد فوفيسا هبين كينا واد نسنيسا واد سيحانيسا قبرك هدي لقلنا وهل هبين ويان صبيحتها يوم المحشر وبرق يقولنا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر بإله هيري نعم الدنيا انت اللي جوجو واحد جوجي سوا مالني هبين قبرك هدي لقو ديغنا وهبين كليا هبين كاسو النبي نوش يقولي قبرك والله مدويان أما وروضة من رياض الجنة إما حفرة من حفر النار مؤمن كينا بربرها جنة كميدا لوغا ديغيا قال كينا waxa looga dhigaya godgodod kanaarta kamida looga dhigaya nina uu hurda oo 70 sano adduunyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halka ha ku daalo ha ku nasto min aadam alayhi salaam laga bilaabo ila joogadeena wixii adduunyada bini aadan soo maray caalamul barzakh bay ku jiraan inna way hurda way nasanaysa oo waxa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta war uma hayaan way hurdaan مالك قيامه صورة الله عفوفه بقبرك كصبح دونان ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا حسرة في نشورهم وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها ذاتك أدونك دوشي لا إله إلا الله إهل كيك النقضة الله inaga dhigo qabriga markay galaan ku kaliyoobi maayaan maalinka qiyaamaha markay soo baxaan xasrad iyo nadaamo iyo murug galiya arki maayaan waxaad moodaa buu nabigu inaan u jeedoon arkaayo ayagoo qabuurihii ka soo baxay oo ciida intay iska hurgufeen ay leeyihiin alxamdulillaahi alladii adhaba canna alxasan ilaaha waxaan ku mahadinaa naxdintii murugtii annaka naga qaaday rabbigay waa kii dhaafitaan ka badnaa ee shakuurka ahaa weeyaan ee afcaasha wanaagsan ee addoonku la yimaado raalliga kaga noqday weeyaan dadna way soo baxayaan yawm alqiyaama maalinta sara jooga waa yawm quraanka yawm buu sheegay habeen ma sheegin yawma laa tamliku nafsun linafsin shay'a yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadaah يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الصاخة هبين من مغليسد هبين كدون واكاس قيامها مركو إلهي كور رمايو ومالين وين هبين مال ومالين كليا وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم إلهي تبارك وتعالى يوم قاسنا قرآنك إلهي نوغو الشيقي وكنتم كنوا صندود ابن عباس رضي الله عنهما مفسر كي قرآنك وحو كفسروا يري أفرتن كنوا صنوا على الجوغي توبان كنوا صنوا حسابتا كل ماني دون تبو يري أفرتن كنوا صنوا يا سيد الله تاقنان دونا toban kun oo sanana xisaabta ku dhamaan doonta nin Arabi oo reer baadiya ayaa saraka cuyr ya rasuulallah maalinka qiyaamaha khalqiga ayaa xisaabi doona markaasuu ilaahay baa xisaabi doona rabbiga xisaabi doona marka ninkii Arabiga intuu sii jeestay buu yiri najawna wa rabbil ka'ba
kacbada rabbigeyga ayaa ku dhaartay waan badbaadnay buu waa nabad galnay buu yiri markaa buu nabigu soo noqo si aad ugu nabad gashay buu ka yiri bal ii sheeg wuxuu waa kariim ilaahay waa kariim hadduu doono iska kaaya cafin buu ma cid baa isaga qabsanaysa buu yiri waa kariim كريم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي إنك ماذا مجرو هدو جرى نبو رسول كل هي ربي جيبوا قيامها الله كل مدونا الدونك يا ربي جي مالنت عد وكل أفعلين ليس مجرته لغة عربية لغة هذا الله يا حاجة مدقتو أجي عمل جيسيبو أركي حاجة بدحدو أجي عمل جيسيبو أركي هرتيسو أجي نار تيبو أركي فاتقوا النار ولو بشق التمر أبو نبي يقول عليه الصلاة والسلام نار تاقاشان كسميست أبو نبي يقول قاشان كيشا تمر جيحيد وصدقاء عضو بحسان كولين نقطنا تمر جيحيد ولو بشق التمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة أبو نبي يقول تمر جيح تمر إني كان هلين أبو نبي يقول ياي هذا الكون أكسن هكوها الله كلمة ونكسن كوها الله سبحان الله وكلمة ونكسن الحمد لله وكلمة ونكسن أمر بالمعروف وكلمة ونكسن ذكرك وكلمة ونكسن استغفرت وكلمة ونكسن لا إله إلا الله وكلمة ونكسن ولا القاقا مسلم قد خيرك عضو الشيكتا وكلمة ونكسن منكر كودو مدى كريبتانا وكلمة ونكسن كلمة الطيبة صدق أبو نبي قولي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين آياتي مرقو النبي يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالك قيامها ضدك والله سو حشرين دونا أيكو عقاقا أو بلا درأة أو كبلاءانة أو مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام أيكو عقاقا كبا موتان درنا موتان وفوا البباردي سيبا كتا الله دواسدي لقو دلي ويان مركز عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رقي دمر مالنتاس ما لسدح سعونيا هاوا لسدح سعونيا قفك كلمونا إيجين مركز أبو نبي يا عائشة قفك أكسعود مالنتاس من نمبا ما قبض با ما نقبا ما بإيجي يا أبو رسول قد هم بقى مجربوا يدي هورتي سواحة على النار تي جهنم قفك عطاء السلمي رحمه الله نيكل أورنجري وحوها نن مروق بدن بوها مروق بدن سلف الصالح صدن سنة بالي نيكاس دولك مويان عرك ما إيجين مركز اللجورين مروق تم بدن ومحيب اللجوري ما دت كان وحي أوجان بعد أديكو أوجاتي باللجوري دت كان نيجا وحبيجا ما قاليني تيدا نيجو أنك هلا يا وعن النيش يا الموت في عنقي جريدي بقرت إيسودان والقبر بيتي هل كان لا يديك ينا وقبر جويان والقيامة موقفي ماشى اللي يجوجني وبنك قيامة ويان وعلى الصراط طريقي وضد الله يمرين دوننا وجدك الصراط ويان وربي لا أدري ماذا يفعل بي ربي جاي وحي يقول سمعين دوننا كما ورقبي بود عنكو انت سو مرحلة نيك أي سوق أي سو إسقوا هذا قصل حق قصل بيودي أنو تيدا كورما يا بودي انت نولا هاي أوهم بنولا شيء كودا ما يسمى بيودي ما أنت وأدويو بريت ولا وآخره ويان عمل كاغا الله دادا عيسى محاد وضاتا محاوتا أنوغو ما أنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شدة قيامة مرقو النبي أنه كورم عليه الصلاة والسلام أي تري يا رسول الله مالنك سرجوغا أيا وات كيسان كريا بي كتري من يقوى أيا كريا بي كتري كنتم كنو صندور مرقابو النبي يقول يا عائشة qofka muuminka iimaan kale ee adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay waa loo fudaydin salaada faradka inta tukataan in laag baabanka qiyaamo looga dhigi buu yiri intaan tukanay salaada maghrib 3 daqiiqo 12 daqiiqo 13 daqiiqo muuminka iimaan kale ee adduunyada intuu joogo ka sahay qaatay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa wax sii dhigtay ee aakhirada ku sii xisaabtamay ee talaabadu qaadayaba eega aakhiradiisa hadalku intuu ka soo bixin qofka muuminka aakhiradu eega
dhaqaalihiisa intuunan bixin aakhiradu eega meeshuu marayo aakhiradu eegaya meesha aan u socdaa ma meel aakhiradeeda iga dhaawacaysaba mise waa meel aakhiradeeda waxay taraysa hadalka iga soo baxaya ma hadal aakhiradeeda dhaawacayaba oo dib ii geysanaya ha dhowtoole mise waa hadal aakhiradeeda aan ku badbaadayo dhaqaalahan bixinayo ma dhaqaale aakhiradeeda ikabayaba oon aakhiro ku badbaadayaba oo ma meel fiican buu iigu dhacayaa mise aakhiradeydii buu dhaqaalahaas iga bixinaya oon ka qabsadaa intay goorigoor tahay mu'minku uu xisaabtamaya mu'minka adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeece ku soo caabuday salaada yare faradka inta uu tukanayay in la eg baa banka qiyaama looga dhigaya dadkii ilaahay yaqaanay daraariya habeen aakhirada hortaalla iyaka aakhiradu qofka hadday hortaalla maxay aakhiradu kugu saamaynaysa noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaanaa waxaad doonta ku hadli kari maysid waxaad doonta eegi kari maysid waxaad doonta cuni kari maysid sidaad doonta u noolaan kari maysid waayo dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo dareenkaasaa xumaanta oo dhan kaa joojinaya wanaag oo dhan kuu diraya dareenkaasaa qofka qabanaya qofku inuu macsiyadda waxa kaa qabanaya waa dareenkaasi waa iimaan weeyaan iimaan ilaahay rumee aakhirana rumee ilaahay rumee aakhirana rumee waa labada nebiyadu dadkay ugu yeedhayeen nebi kastoo adduunka la keenay ummadda ilaahay xaggiisuu ugu yeedhay aakhiradana xaggeegu ugu yeedhay waxa ilaahay kaaga raalli noqona waa iimaan iyo camal saalix waxa aakhiradaadu ku badbaadaysana waa iimaan iyo camal saalix maalin maalmaha ka mida ayaa nabigeennu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiinuu soo maray wuxuu arkay markaa saxaabada qaar ka mida aqal yaroo cariishee markaa ay dhisayeen markaa buu nebigu yidhi maxaad haysaan waxay idhahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayoo waan la dhidhisaynaa markaa buu nebigu yidhi wallaahi anu ma arko ilaa saacaddaa ka degdeg badan buu ka yidhi saacadda qiyaamada ka degdeg badan buu ka yidhi intaad aqalkaa dhisaysaan malagii suurta afuufayey waa israafiil calayhi salaam ayaa buuqii qaatay buu rasuulku yidhi foonintii buu qaatay lugihiina u kala fidiyey markaasuu sidaa u haystaa idan ayuu sugayaa idan saxaabada rasuulku hadalkaa markay maqleen waxayba moodeen inay saacaddu berri ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanayo markaasay yidhahdeen yaa rasuul allah maxaan idhahnaa noo sheeg markaa buu nebigu yidhi waxaad tidhaahdaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil dhahda wallaahi markuu aakhirada kala hadlaayo markuu jannada kala hadlaayo markuu naarta kala hadlaayo markuu qiyaamada kala hadlaayo dareenkoogu wuxuu ahaa si waxay jannadiiyo naartii hadda ay arkayaan isha ku hayaan innakana maanta maa sha allah dadka muslimiinta dareenkaasi maanta waa nagu yaryahay ilaa man raxima rabbi mooyaane lanna qalbigan uu saamoobaa qalbigu إن القلوب لا تزدأ كما يزدأ الحديد إذا أصابه الماء برتا حديدك بيوه هدي تابتان دحل بيكون ريبان بيوه قلبك بني آدم كنا دحل بو يشاء ها قلبك دحلين يا وحنا ديجس قلبك سامين يا وحنا ديجسنس قلبك سامين يا وحنا تكون قلبك سامين يا وحنا تكفكر قلبك سامين يا وأفرت قصبضات قلبك ابن هذا كسعتوين أفرتاس صابات القلب بعلماء ولادان وعاد يكتب قلبك قلع وعاد هذا قلبك قلع وعاد كفكرته قلبك قلع وعاد دقيسته قلبك قلع قلبك دحل كم حالك قبية لبس شيء بعلماء ولادان لبس شيء بقلبك دحل قالك قبية قرآنك آخر سكي سؤال الله بديو يا آخرته أنت بدل لا شك شك الله حسوس الله شك أيوه labadaa maanta may nagu yaryihin mise way nagu badan yihiin yaa qur-aanka akhriskiisiina waa nagu yaraaday aakhirada sheekadeediina waa nagu yaraatay bal sheekada aakhirada saxaabadu maskiidka intay ka qaadaan bay suuqa aakhirada kaga sheekaysanayeen dadka muslimiinta ee zamankan joogana
sheekadii adduunyada intay ka soo qaadaan dibadda ayay masjidka dhexdeeda keenayaan isbeddelka nagu dhacay eega suuqa masaajid suuq almuslimiina ka musallaahum buu yidhi cali bnu abi aalib suuq almuslimiin aswaaqda muslimiintu waa sida masaajidooda oo kala weeyaan sida masaajidda ilaahay loogu weynaynaayo ayaa zamankii nebiga suuqana ilaahay loogu weynaynayay sida masjidka dhexdiisa ilaahay aan loogu caasiyaynin ayaa suuqoogiina ilaahay aan loogu dhex caasiyeyn innakana zamankeennan maanta sheekadii dibadda taallay ayaa laga yaabaa in la keenay masjidka gudihiisa nin buu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam masjidka dhexdiisa baylah ka yaboohinaya markaa buu nebigu ilaahay kuuma soo celiye buu ka yidhi haddaad aragtaan buu nebigu yidhi nin masjidka dhexdiisa baylah iyo baadi ka yaboohinaya waxaad tidhahdaan ilaahay kuuma soo celiye dhahada haddaad aragtaanna nin masjidka dhexdiisa ganacsi iyo tijaaro ka dhex samaynayana waxaad tidhahdaan ilaahay kuuma barakeeye dhahada innamaa buniyat almasaajidu lima buniyat lahaa masaajidda wixii loo dhisay baa loo dhisay buu rasuulku yidhi nolosha masaajidda taalla bay culimmadu leeyihiin ayaa la rabaa in dibadda loo saaree nolosha dibadda taalla masjidka in la keeno maaha cahdigii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo cahdigii saxaabada dadka muslimiintu nolosha masjidka ay ku haystaan ayay dibadda ula baxeen halkan ilaahay bay kaga baqeen dibaddana ilaahay bay kaga baqeen halkan ilaahay bay ku ammaaneen dibaddana ilaahay bay ku ammaaneen halkan aakhiraday ku weyneeyeen dibaddana aakhiraday ku weyneynayeen wallaahi siiraday ku taallaa cumar binu khadaab suuqa madiine intuu gala buu odhan jiray halkayna fadhiisiya ilaahay saacadaha rumaynee kaalaya cabdullaahi binu cumar intuu u yimaado tufayl buu ku odhan jiray ina mari raac buu odhan jiray xaggeen tagnaa suuqaan tagaynaa suuqa iyuu soo baxayeen haddana maalin kaluu yidhi ina mari raac haddana maalin saddexaad buu yidhi iraac waa cabdullaahi binu cumar in cumar binu khadaab iyo tufayl oo taabici ahaa maalkaasuu markaa dhowr cisho markuu suuqii ku celceliyey uu ku celceliyey buu ka yidhi ya bnu cumar suuqa waadna geysaa maalin walba badeecadna kama soo iibsatid badeecadna uma iibgeysid badeecadna ma soo baayacdid meelaha dadku fadhiyaana nama fadhiisisid war halkan ina fadhiisi buu halkan noogu sheekee buu ka yidhi oo halkan diinta nagu bar sheekada saxaabadu diin bay ahayd markaa ibnu cumar baa ku yidhi warka kaagan caloosha buuran li innamaa naqdu min ajli asalaam waxaan u kala haynaa waxa weeyaan dadka inaan salaanno baan u kala haynaa buu ka yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu baan u kala haynaa waa duco weeyaan ducadaa baan u kala haynaa muslimiintaan u ducaynaynaa iyaguna way noo ducaynayaan boqol qof baan u ducaynaynaa boqolkaasi way noo jawaabayaan waa duco laga yaabaa boqolkaa awliye ilaahay intay ku dhex jirto in ilaahay ducadooda noo aqbalo salaada muslimiinta la siiye waa maxay salaanteennu assalaamu calaykum nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakaadkii ilaahay korkaaga ha ahaadaan kii kale muslimka waxa uu ku leeyahay adigana nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakaadkii ilaahay korkaaga ahaadaan buu ku leeyahay salaantaasaan la soo kala haynaa boqol qof baan salaamaynaa 200 oo qof baan salaanta ummadda salaamaynaa way noo jawaabayaan waxay garanayeen saxaabadu in salaanta muslimiinta ay la dhaxmareen ilaahay intuu u aqbalo inay nabadii helaan oo naxariistii helaan oo barakadiina ay helaan inagu bagaashka iyo badaacadda iyo adduunyada loo kala lahaa mooyaane sunnaha nebiga loo kala lahaayoo lagu noolaan lagama dhadhacsana maanta salaantaasaa lagu dhargayaa cali binu abi aalib inuu yimid uu ka yidhi saaxib alciyaal baan ahay maciishadii baa igu adkaatay markaasuu yidhi lacallaka tanaamu bacda salaati alfajri buu ka yidhi malaha salaada fajr kadib ayaad seexataa buu ka yidhi markaasuu yidhi mayma seexdo lacallaka tamshi amaama man huwa akbaru minka sinnan buu ka yidhi malaha qofkaa da'weyn markaad la socoto ayaad hor socotaa buu ka yidhi haddana hor martaa markaasuu yidhi may haddana markaad ducaysanaysid ma laga yaabaa inaad labadaada waalid ilaahay dembi dhaaf aanad u weydiin markaasuu yidhi haa markaa burta arsaaqada kaa xidhay waa taas labada waalid ducada ku dar buu arsaaqadu ay kuu furmiyeen
meelaha inagu imika wax ma ka egeegnaa ya may salaanta dadka ay salaamayaan bay risiqa ka dhex arkayeen waalidka ducadiisa u ducaynayeen bay risiqa ka dhex arkayeen istikfaarta ay badanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen salaatu duxaada ay tukanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen salaatu duxaada cahdigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaad moodaysaa salaad jamaca in la tukanayo masjidka zaxmadda iyo cidhiidhiga ka dhacaya diintan ilaahay nooma siinin keliya inay aakhiro manfacadeedu nooga bilaabanto bal ilaahay diintan waxa uu noo siiyey inaan adduunkan iyo aakhiro aan ku dhargno ku libaano marka noloshan adduunyada intaan haysano waa fursad yaanan dayicine adduunyada diinha ka qaadanno diintana asaaskeegu waa iimaan iyo yaqiin weeyaan yaqiin iimaanku waa maxay ilaahay rumee yaqiintuna waa maxay aakhiradu ha kula weynaato wallaahi hadday aakhiradu inala weynaato dhaqankeennaa toosi oo risiqeennaa xalaal noqon oo mujtamac oo dhan baa isbedeli waayo laanna mujtamaci waxay noqonaya mujtamac aakhiro ku xisaabtamaya sidii labadii nin ee xadiiska nebigu noogu sheegay fi sunan nin baa nin dhul ka iibiyey dhulkii markuu gatay waa dhulbeereed buu ahaa uu falay markaa khasna dahaba markaa uga soo baxday jarra min adahab uu qaatay uu la ordo ninkii lahaaba uu keenuu ka yidhi war dhulkaad iga iibisay dahabka intan leeg baa ka soo baxee malaha waad ilowsaneeda iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi may anigu kuma ogeyn adaa ilaahay kaa siiyey adaa iskale iska qaada buu ka yidhi war waxaan adigaa le iga qaado innaga zamankeenna waa maxay war waxaan anigaa le isii weeyaan teen waxaan ku dagaalamayno dhulkan anigaa le gurigan anigaa lahaa meheraddan anigaa lahaa waxaan anigaa lahaa baa isku haysannaa iyaku waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen war waxaan adigaa le iga hoo iyo kaa qaadan maayo may ma dhici karto may adaa iska le adaa ilaahay ku siiye iska qaado may dhulkan adaa iga iibiyey malaha waad halmaamsantahe adigaa iskale iga qaado waxaan malihi anigu ye lacagta intan leegna anigu kuma siine may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tegeen maxay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kalea leh ha iga qaato kanna wuxuu leeyahay war malihiye isagaa ilaahay siiye ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa qudaadda zamankan laga yaaba inay odhan lahaayeen xoolaha dawladda ale iska keena ilaa qaar baa iska fiican way jiraane laakiin kuwadda waxaa iska jira dawladda u shaqeeya moogta xoolahan dawladda iskale iska keena halka ka baxay ninkuna ma odhan wuxuu yidhi adu maxaad leedahay ubad wiil adiguna gabadh labadaa isku guuriya labadaana xoolaha siiya buu yidhi bal fiirso islaaxu waa cajiib halkaa hadday islaaxdo waa cajiib halkaa hadday xumaato laakiin dhegayso qisad kale saddex nin baa nebi ciise raacday calayhi salaam siday ula socdeen ayay yimaadeen meel bannaanka uu dahab ku yaallo dhaymanku markaasuu nebi ciise ku yidhi waxaan waa dhayman waa dahab waa jawharad markaasay yidhahdeen noo qaad markaasuu yidhi nebi ilaahay soo diray iyo adduunya meel ma wada marta buu ka yidhi markaasay dee anna kaa qaadanaynaa dee haddaad qaadataan i raaci maysana waad iga hadheen ogaada buu yidhi diin iyo adduunya isma raacda buu ka yidhi waa nebi zaahiduha nebi ciise calayhi salaam saddexdii nin way ka hadheen baa la yidhi nebigii ayaan darrada eeg markaasay dahabkii qaateen way la socdeen way la lugeeyeen magaaladii markay u dhowaadeen bay yidhaahdeen haddaan maalin galno waa lanaga dhici habeen han ku beegno laakiin waa gaajoonaynaa way tashadeen waxay yidhahdeen laba dahabkaas sii ilaaliso midna magaalada intuu tego cuntahay noo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shayddaankiiba dhiigga bini aadamka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeenna buu nagu fiican yahe ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha han ku ridno han ku aasno dahabkana labadeennu han kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shayddaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adiga unbuu kugu fiican yahe cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee
markay dhintaana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadii buu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskaarijiyeen nabiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaas halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam waryaada buu nebi maxamed uu ina leeyahay dhegay jidhka bini aadanka waslad baa ku jirta hadday hagaagto jidhkao dhan baa hagaagi hadday baanaatana jidhkao dhan baa baanaanoo xumaan taasina waa qalbiga buu rasuulku yidhi qalbigana wax kale ma hagaajiyaan qalbiga lacag ma hagaajiso qalbiga waxa kaliya hagaajiya waa markay jirto ilaahay macrifadiisu macrifatullah Uthman bin Affan Allah raalli ka noqday addoomihiisii addoon ka mid u yeedhay maalin wuxuu yidhi lacagtan qaad Abu Dharr al-Ghifari u gee hadduu lacagtaa Abu Dharr hadduu lacagtaa kaa qaatana xor baa tahay buu ka yidhi xor waan ku xoreeyey Abu Dharrna markaa magaalada Madiina dibaddeedu deganaa ribda meel la yidhaa oo Uthman bin Affan baa ku yidhi halkaa u guur adigu waayo waa nin zaahida buu ahaa qarnigii nebigaad mooddaa inuu joogo isagu dadkan taabiciinta ee diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ay adduunyadii la yimaadeen oo dhanna uu nafinaya isagu dharkii nebi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa weli cariishkii nebi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii cahdigii nebiga la cunayana weli uu cunaa isagu Abu Dharr al-Ghifariyi radiyallahu canhu marka ninkii addoonka ah lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhigan nin baa lacag diidi kara soo sidaa ma hinde ma nin baa lacag diidaya waa iska jecel lahay uu yimiday uu salaamay wuxuu yidhi amiirkii mu'miniinta Uthman baan salaan kaaga sidaa waan ka qaaday bal waran isaga ka waran daar al-khilaafa ka waran masjidkii nebiga ka waran muslimiinta xaalkooga ka waran markuu uga warramay ayuu yidhi lacagtana uu ii soo dhiibo wuxuu yidhi Abu Dharr u gee lacagtaas markaasuu yidhi maxaan ka dhigaa wuxuu yidhi dee ha u kaalmaysta adduunyadiisa markaasuu yidhi u celiyo waxaad ka tidhaahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa Madiina joogtee ciddaas sii ka dha buu yidhi innaga maanta lacag nin diidi karaa uu yar yahay maanta zamankan waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxaa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahidayda ilaahay baa ii daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanahay ilaahay baa ii haya cid kale wax iima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsanayd iyaka laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istikfaar baan haystaa quraan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilaya waa diin weyn adduunye maaha markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninkan lacag uunan u jeedin uu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yidhi amiirka wuxuu igu yidhi hadduu Abu Dharr lacagtaa kaa qaato xor baa tahay buu igu yidhiye ar walaal addoonnimada han ka baxe i xoreeyoo lacagtan iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi kaa qaadan maayo waxaad doonto akhri markaasuu hor iga qaado oo ii naxariiso maxaan kuugu naxariistaa haddaad lacagtaa iga qaadato waan xoroobay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi Abu Dharr dhegayso hadalkuu ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buu yidhi marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anuu addoon xor aan ahay buu yidhi xor bas uu yaabay ninkii lacagta isagoo wada Cusmaan u keenay wuxuu yidhi waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagtaa kaa qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunye u jeeda maaha Abu Dharr al-Ghifari lacagta dhaliili mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacantaa ku hayso diintaadii aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso maanta adduunyadii
iyadaa maanta adduunyadiina fuushay saxaabadu adduunyada sida faraska loo fuulo ayay u fuushanayeen iyaku adduunyada iyakaa fuushanaa innakana maanta adduunyadii bayna fuushay maanta waa ka tukan kari laanahay diintii baan ka baran kari laanahay diinteenni wakhti ku bixiyay bay culimmadu leeyihiin wakhti waa ku bixin kari laanahay maxayna haysta waxayna haysta waa adduunyo adduunyada maxay kula doonaysaa adduunyadu inaad iyada la joogto bay doonaysaa hay ka tagin bay adduunyada ku leedahay lamana nacayo adduunyada ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso xalaal mirad noqo laakiin waxaad ogaataa adduunyadani waa balaaq aakhira ku gaadh mooyaane iyada ha ka dhigan hadafkaagii aakhirada ayayna kaala weynaan Usmaan bin Affaan Allah raalli ka noqdee nin baa nabigu yimid oo yidhi gabadh baa lay siiyey waxaan ku aqalgalana ma haysto Usmaan u tagay buu ka yidhi markaa buu yimid Usmaan bin Affaan wuxuu arkay Usmaano khaadimkiisa ku haysta dubaaradan faynuuskan maxaad u baqtiin weyday markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosadda aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abuu yidhi iska kacay Usmaan baa ninkii u yeeray war kaale xaggeed u socotaa wallaahi dee waxaan u socdayba war kale ahayd war kale meesha ka socday buu yidhi markaas maxaad aragtay maxaad u socoto dee nabiga ay ka soo diray buu yidhi sallallahu alayhi wasallam oo yidhi Usmaan u tago waxaad ku tiraahdaa waxuu nabi maxamed ku amray wixii caawa aan arooska iyo reerkayga aan ku aqal gelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay Usmaan ka qaad buu nabigu ugu yidhi dee maxaad u kacday buu igu sheegi weyday dee waxaan arkayaa ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa khaadimkaagiiya wuxuu yidhi dhegaysa buu ka yidhi faynuuska halkaa iska shidmaayey shaqo adduunye iyo shaqo aakhira midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacag uu dhiibay israafka iska ilaalinayeen xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna xoolahooga way ka ilaalinayeen innagana caroos baa lagu leeyahay $30,000 bay ku bixiyeen caroos $30,000 bugbac fanaaniin baa loo yeedhay fanaaniin maxaa ka dambeeya laba reerka bugbac iyo macsiyo lagu dhiso 2 bilood ma gaadhaan way kala duulaan ilaahay uu kala qaadaa markiiba laana marka hore macsiyo lagu dhisay diin iyo alla ka cabsi laguma dhisin israaf baa lagu dhisay baatil baa asaas looga dhigay muslimku war muslimku dhaqaalihiisa xor uma tijaaradaada xor uma tihid waa inaad xataa cilmi albayci washaraa علم البيع والشراء علماء قالوا يويدي عمر بن الخطاب سوق مدينة انتو قالوا أورنجري لا يبيع في سوقنا هذا إلا من تفقه الدين ورياضة السوق يقع نوح كوي بن كرام مجرب عمر أورنجري إلا نن مسجد النبي انتو تقي علم البيع والشراء علماء كصبر تيمو يعني إنك أنا ما أنت عيد والبقى نعصب بالوضوء تشين يا تايلاند بلغوا الدولي هبري با سعودة كلها تشين هاو سعودة حاجة سعودنا war muumin waxa la doonayaa inaad noqoto muumin labada indhood ee kugu taala ilaa adduunyadaada ku eego ilaa aakhiradaada ku eego aakhiradaada inay adduunyada ku seejin adduunyadani waa in yar waxaan joogaynaa in yar walaalayaal inta yar aan joogno ilaahay ha kaga baqno oo diin ha ka qaadano oo diinteena ha baranno oo diinteena ha ka shaqeyno oo zaman adag baa lagu jiraa zamankee lagu jiraa المتمسك بدينه كالقابض على الجبر ابو نبي قولي وزمن النبي محمد سي شيغي كون يا 400 سنه كهر نيجا دينتا مالنتا يرادا وان حجسن waxa uu ka dhignaan doonaa nin dhamac loo dhibay buu rasuulku yiri bulshada ku nooshay maanta eeg waa mujtamac khayrkoogu yaraaday sharku batay meeshaad u baxdaba ishaadu waxay ku dhacaysaa ma wax ilaahay ka farxiya mise wax ilaahay ka cadhaysiya مجتمع ومجتمع قفكو هدوير هذا ما أنت صنع النبي كفر عليك وأتكان يسألون قبصده إلهي ودب يريمو يعني
marka zaman adag baan ku jirnaa waxaan kaga badbaadaynaa waa maxay rujuuc ila diin inaan diintana u soo noqono oo dadaalka diinta ay culimadu mar walba inoogu baaqayaan ee masaajida laga naadinayo ee maraakista laga naadinayo ee madaarista laga naadinayo ee ijtimaacyada loo qabanayo ummadda loo fikirayo war dadaalka diinada maanta caalamka ka socda la rabaa caamadeennu inay culimada intay garab joogsato aan meel kaliya u wada jeesano insha Allah dhahada tama gudoona dadaalka diinta bisa dhageystayaal wanaagsan baan noqonaa ya dhageysta wanaagsan waxa ka wanaagsan dhageysigu waa min diin weeyaan laakiin waxa la doo inaad noqoto adiga laga rabaa inaad diinta qaybtaada oo ka qaadato waad ka qaadan kartaa saxaabada rasuulku nin walba salaaxiyadii ilaahay uu geliyay ummaddu ku anfacay kii cilmi lahaa cilmigu ummadda wax ku taray kii dhaqaale lahaa dhaqaaluhu ummadda wax ku taray kii raganimo lahaa raganimadu ummadda wax ku taray kii wajahad lahaa wajahadiisu ummadda wax ku taray Usmaan ibn Affan Umar buu nabigu u diray Makka markii sulh al-Hudaybiya waa ka cudur daartay Umar wuxuu aniga may buu Usmaan baa ku munaasaba buu Usmaan baa ku munaasaba Usmaan buu nabigu yiri dal waa runtii Usmaan adigu tag Khalid bin Walid geesinimadii raganimadu lahaa ummaddu wax ku taray maalintuu soo islaamay buu nabiga seefta u keenay seeftan iga qaba buu Ilaahayna dambi dhaaf ii weydii maxaan kaaga qaadaa seefta ii sheeg intaasoo muslimiina ku laayay buu ka yidhi kaa qaadi maaye intaad muslimiin ku laysay in ka badan inaad cadowga ilaahay ku leysaan kaaga rajayne qaada buu yidhi seeftoo ilaahay diintiisa u jihaad waa raganimadiiba xagga kale loo bedelay bas kii caalimka ahaa cilmigu ummadda ku anfacay kii dhaqaale lahaa dhaqaalihiisu ummadda ku anfacay zamankii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu nebigu diyaariyey ummad nin walba salaaxiyadda ku jirta loo isticmaalayo diinta dadaalkeega marka inakuna kulligeen insha allahu tacaala khayr baa inaga muuqda khayr jacayl baa inaga muuqdee dee insha allah dadaalka diinta dhinac kastaba dadaalka diintu waa leeyahay wallaahi waan runtaan inii sheegi macallinka qur-aanka dhigaya dadaalka diinta qaybtiisii buu ka hayaa sheekha masaajidka darsiga ummadda marinaya dadaalkii diinta qaybtiisii buu ka hayaa jamaacadada ilaahay dartii u socda qaybtoodii bay diinta ka hayaan muxsinka dhaqaalihiisa masaajidda iyo madaarista ku dhisaya diinta qaybtiisii buu ka hayaa qofka muslimku diinta intuu ka qaadan karo oo ka qaadan karaa wa'tasimuu bihablillaahi jamac baa la sheegay jamac hal nin kastoo muslima diintaasi wax waad u qaban kartaa war u qabo kalimadda wanaagsan buu nabigu waa sadaqad kalimadda wanaagsan dariiqa muslimiintu ay maraan ninkii ka gooya geedka buu nabigu yidhi hee jannadu galay buu rasuulku yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi haweenaydii masjidka nabiga marka laga dareeray imanaysay ee ka qaadaysay maaragtaanay waxa masjidka nabiga ku daatay ka qaadaysay markay dhimatayna waa laga qariyo nabiga looma sheegina waa la aasay markaa buu nabigu yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi jannadaan ku arkay jannadaan ku arkay maxaad iigu sheegi weydeen buu nabigu yidhi khayrku yaryaraysi ma leh marka waan inagu dheereeyay insha allahu tacaala wixii wanaag iyo khayr soo dhex marana ilaahay bay soo dhex mariyey anigana miisaanka xasanaadka allah ii saaro ikhlaaskana allah noo wada ziyaadiyo culimmadana soo dhaweysana waxaan leenahay jazaakum allahu khayr sheekh maxamed waxaan leenahay margeysa anu marti kuma hiya waan deganahay ya deganahay ma sha allah ciyaalkii reerkii oo dhan baa jooga marka allahna naga wada raali noqdo kulligeen hada وصلى الله على سيدنا محمد بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون
سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل